magaciisu waa Dr. Maxamed Cabdilqafaar Almashaali waa dhakhtarkii diiday gargaarka barnaamijka qalbid macanna ee uu ka soo muuqda Qays. Dr. Maxamed waxa uu dhashay sanadii 1944. Aabihii waxa uu ahaa bare. Qoyskiisu waxa uu u soo guuray gobolka galbeedka ee dalka Masar, halkaas ayuu qoyskiisu deganaa muddo. Dr. Maxamed Almashaali ayaa ka qalin jabiyay kulliyadda caafimaadka sanadii 1967. waxa uu ku takhasusay cudurrada gudaha iyo kuwa carruurta. waxa uu ka soo shaqeeyay gebi ahaan gobollada dalka Masar. waxa uu muddo badan la shaqaynayay wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar. goobtiisa caafimaadka ee caan ka noqotay ayuu ka furtay magaalada Tanta sanadii 1975. waxa uu ka masruufi jiray walaalihiis iyo carruur uu walaalkii ka geeriyooday, waana sababta ugu dib dhacay guurka. waa uu guursaday waxa uuna dhalay 3 carruur ah oo dhammaan ka qalin jabiyay kulliyadda injineeriyadda. Dr. Maxamed Almashaali ayaa ah nin aan isla weynayn oo goobtiisa caafimaadka u soo lugeeya. waa nin niyad wanaagsan oo ay aad u jecel yihiin dadka deegaankiisa. qofkii wax haysta waxa uu ka qaadaa 10 geni oo lacagta Masar ah, waana lacag ku dhow $0. dadka qaarna waxba lama weydiiyo oo waxaa lagu caawiyaa dawada. maamulka gobolka galbeedka ayaa ugu magac daray mid ka mid ah wadooyinka magaalada Tanta si loo sharfo. Dr. Maxamed waxa uu sheegay in aabihii uu kala dardaarmay inuu caawiyo masaakiinta, balse uu bilaabay inuu dhakhtarkiisa dadka si bilaash ugu daweeyo markii wiil ka soo jeeda qoysaska saboolka ah uu waayay lacag uu ku iibsado daawada macaanta insulinta, dabadeedna uu dab isqabadsiiyey. Dr. Maxamed Almashaali ayaa ah 76 jir, waxa uuna maalintii shaqeeyaa 12 saac. Dr. Maxamed Almashaali ayaa diiday inuu qaato tabarucaadii barnaamijkii qalbid macan. waxa uu sheegay in ay jiraan dad isaga ka daran, waxaana ilmeeyay Qays oo ah ninka ka soo muuqda barnaamijkaas. waxa uu u kaxeeyay xarun u dhoweyd oo lagu xanaaneeyo carruurta agoonta.